بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل كانوا جنال كان يوتيوب كاينو كلنا هاي حلقة وراركا فضلا هدي أد نقول عشوب تهاي جنال كسبسكرايب نوصار جنبال الكنافرو سيان مركاسي وحيابها عن هل كان أوصل لجنو دروبة بعد وهشيد كنا سولواده وراركي وجودن بيه الصومالية وجاميها حزب جودة جرى عبد الرحمن عبد الشكور والسمي والله دور تقولها شعبك iyadoona kooxda madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ee arintaasi walaac weyn ay ku noqotay warbixin amuurtaasi ku saabsan ayaad barnaamijka intuu hawadu ku jiro ku daawan doontaan booliska oo shaaciyay sababta mudday loogu celiyay garoonka aadan cabdile cismaan ee magaalada muqdisho iyana waan idiin soo baahin doonaaye beesha habiye oo fariin xasaasi ah u dirtay beesha isaaq iyo Soomaaliland iyana waan idiin soo gudbin doonaa hadduu rabweyne qadaro iyo shaki cusub oo hareeyay dhameystirka doorashada golaha shacabka Soomaaliya qodobada inagu soo kordho ayaad barnaamijka ku daawan doontaan hadduu rabweyne qadaro markale waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe inoo saartid muuqaalkana like gare oo share gare si aan u helno saaxiibsidaada oo kale u qalbi wanaagsan haddii aad codsigayga tixgelisana daawadaad baan kaaga mahad celinayaa markana ku soo dhawaada qodobada aad hordhaca aad ku daawateen oo intaasi ka faahfaahsan aynu ku bilownay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa goordhow loo doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya kadib doorasho maanta ka dhacday gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo kamid ah xubnaha musharaxiinta mucaaradka ayaa guul taariikhi ah ka soo hoyay doorashada inkastoo uusan gelin tartan adag sida uu shaaciyay guddiga doorashada ee Galmudug نعيمة حسين علي oo la tartami lahayd cabdiraxmaan ayaa ka tanaasushay tartanka kadib waxaa loo qaaday cod gacan taag ah isaga oo helay codad gaaraya 86 cod oo dhammaan ergada soo xaadirtay guusha cabdiraxmaan ayaa dhabar jab ku ah filla Soomaaliya oo isku dayday in ay kursiga ka reebto maadaama uu ka mid yahay xubnaha ay sida aadka ah isugu hayaan farmaajo doorashada ayaa haatan sii soconaysa waxaana lagu gudagalayaa 3 kursi ee kala ah ee la qorsheynayo in isla maanta lagu qabto caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb kursi kamid ah kuraasan waxaa sidoo kale loo xiray Cabdullaahi Aadan Kulane Jismareexaan oo kamid ah saraakiisha sarsare ee nisa kaasi oo hoob 140 waa aan iraahday hoob 40 ee baarlamaanka Soomaaliya doorashada golaha shacabka Soomaaliya ayaa dardar ku socota waxa uu qorshuhu yahay in la soo gabagabeeyo koor 15 bisha February ee sanadkan 2022 waa hadii markaasi lagu soo gabagabeyn karay barnaamij wareedka iyaga ayaad markaasi daawanaysaan afayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Cabdilfataax Aadan Xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay hor istaagii shalay lagu sameeyay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey oo loo diiday in uu ka baxo garoonka Aadan Cabde xilli uu ku sii jeeday magaalo xeebeedka Baraabe Cabdilfataax Aadan ayaa sababta ku sheegay in gudoomiyuhu watay ciidamo fara badan iyo hub taasina ay keentay in laga hor istaago inuu ciidanka kala baxo garoonka sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in isaga aan si gaar ah loo bartilmaamsan balse ujeedka uu ahaa arrimo la xiriira amniga doorashada afayeenka ayaa xusay in amniga Baraabe uu sugan yahay isla markaana musharaxiinta tagaya kaliya loo ogol yahay ilaala gaaraysa 4 ama 5 nin sida uu hadalka u dhigay ma jirto sabab keeni karta in ciidan badan loo qaato magaaladaasi garoonka Aadan Cabde waxaa lagu baraarugay ciidamo hub badan wata oo raba in ay diyaarad raacaan lana ogaaday in ay Baraabe tagayaan balse Muudey waxaa lagu wargeliyay in kaliya loo ogol yahay 5 askari oo waardiye ah ayuu hadalkiisa sii raaciyay afayeenka hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay garoonka Aadan Cabde lagu celiyay gudoomiye Muudey oo ku sii socda magaalada Baraabe ee deegaan doorashadiisa tahay si uu mar kale ugu tartamo kursiga uu ku fadhiyo oo ay sumadiisu tahay hoob 145 si kastaba Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey oo dhacdadani kadib shir jaraa'id ku qabtay wariyaasha ama shir jaraa'id u qabtay wariyaasha niraade ayaa eedayn u jeediyay koonfur galbeed iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda waxaana sheegay in ay boobayaan kursigiisa isagoo oo shaaciyay in la rabo ama in loo rabo qof gaar ah dhammaan musharaxiinta ayuu ugu baaqay inay ilaaliyaan
xasiloonida amniga maadaama lagu jiro doorashada iyaguna ay mas'uul ay ka yihiin nabadgelyada guud ee doorashooyinka. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay garoonka Aadan Cadde lagu celiyay gudoomiye Mudee oo ku sii socda magaalada Baraabe ee deegaan doorashadiisa tahay si uu mar kale ugu tartamo kursiga uu ku fadhiyo oo ay sumadiisu tahay hoob 145. si kastaba Cabdiweli Sheekh Ibraahim Mudee oo dhacdadani kadib shir jaraa'id ku qabtay wariyaasha Niraade ayaa eedayn u jeediyay Koonfur Galbeed iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda, wuxuuna sheegay in ay boobayaan kursigiisa isagoo oo shaaciyay in la rabo ama in loo rabo qof gaar ah. Gabagabada barnaamijka ayaan ku sii siqaynaaye markan haddii aynu soo qabtano qodobka ugu dambeeya ee barnaamij wareedkayaga. ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab gaar ahaan ururka afraad guutada 16aad ayaa howlgalo qorsheysan ka fuliyay agagaarka deegaanka Tooratoorow ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab. Saraakiisha ciidanka Danab ayaa waxa ay sheegeen in ujeedka howlgalkan uu ahaa sidii deegaanada howlgalada ka sameeyaan ugu saari lahaayeen ururka Al-Shabaab oo dhibaato ku haya dadka shacabka ee halkaasi degay. waa sida hadalka u dhigeen. waxay sidoo kale sheegeen in inta howlgalku socday la soo qabtay 10 askar ah oo ka tirsan 10 ka tirsan Al-Shabaab kuwaasi oo ku sugnaa deegaanadii ay howlgalka ay ka sameeyeen, isla markaana ay sii wadi doonaan. ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgalada ugu badan waxa ay ka sameeyeen deegaanka gobolka Shabeellaha Hoose. waa deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose iyadoo oo la wareegay deegaano dhowr ah. ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab gaar ahaan ururka afraad guutada 16aad ayaa howlgalo qorsheysan ka fuliyay agagaarka deegaanka Tooratoorow ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab. Saraakiisha ciidanka Danab ayaa waxa ay sheegeen in ujeedka howlgalkan uu ahaa sidii deegaanada howlgalada ka sameeyaan ugu saari lahaayeen ururka Al-Shabaab oo dhibaato ku haya dadka shacabka ee halkaasi degay. waa sida hadalka u dhigeen. guutada 16aad ayaa howlgalo qorsheysan ka fuliyay agagaarka deegaanka Tooratoorow ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab. Saraakiisha ciidanka Danab ayaa waxa ay sheegeen in ujeedka howlgalkan uu ahaa sidii deegaanada howlgalada ka sameeyaan ugu saari lahaayeen ururka Al-Shabaab oo dhibaato ku haya dadka shacabka ee halkaasi degay. waa sida hadalka u dhigeen. ugu dambeyntii aad baan kaaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biiro channelka subscribe inoo saar, muuqaalkana like gare oo share gare si uu u gaaro saaxiibo fara badan. haddii aad horey noola joogtana daawada aad baan kaaga mahad celinayaa, balse daawada inta laga gaarayo muuqaalkan kiisa xiga. Rabbi idinkii nabadgeliyo.